Luanga River waxa uu ka soo bilaabmaa dalka Malawi oo dhaca qaybta koonfureed ee qaaradda Afrika waxaanu inta badan rogmada 500 oo mayl ama 800 oo kiiloomitir waxaanu ku dhamaadaa koonfurta dalka Zambia waxaana lagu qiyaasaa midka ugu jeerta badan leh waxaanu inta badan rogmada xilliyada guga iyo dayrta deegaankani Luanga River waa deegaan barwaaqaha halkana waxa ku nool raxan libaaxiya taasoo barwaaqadu keentay inay iska seexdaan waxaana sidoo kale kula nool maroodiyada oo iyagu ah qaar aad iyo aad u tiro badan isla mar ahaantaasina jeertu ay tahay ta ugu tirada badan leh ee ku nool webigan lagu magacaabo Luanga River kaasoo rogmada oo kaliya waqtiyada roobka ee Soomaalidu inta badan u garan og tahay guga iyo dayrta dagaal baan ayaa waxa dhaxmaraan baasha loo yaqaan jeerta oo iyadu deegaankani mulkida isla mar ahaantaasina ugu tiro badan iyo libaaxyada oo iyagu ah raxan boqortooyo baasha loo yaqaan jeertu waxa isku kala bixisay dhul 500 oo mayl taasoo mar webiga loo yaqaan Luanga River waxaana miisaankeeda lagu qiyaasaa 1500 oo kilogram waxaana inta badan daaqda habeenkii halkii maalintii oo dhan biyaha ku dhex jirto maadaama uu halkan waqtigu isbedbedelo haatan waxa la joogaa waqtiga barwaaqada waa waqtigu nool kastaana isdhisi lahaa waqtiyadii roobku waa gabaabsi waxaana soo galay jiilaal biyaha webigu way sii yaraanayaan marba marka ka dambaysa khatar cusub ayaa soo waajahday waana libaaxa waxay ka mid tahay xayawaanada inta badan ku qaata webiga waxaanay halkani eeganaysaa meelaha ugu gudan khatarta libaaxu ma aha mid indhaha laga qarsan karo isla mar ahaantaasina jeertu way ogsoon tahay waxaanu libaaxu door bidayaa kuwa da'da yar leh waxaana inta badan halkani ku jira ilaa 50 jeerood 100 mitir oo biyo balse barkadan ay ku jiraan waxa leedahay mulkiile waxaana lagu magacaabaa Ditch Master waana mid xoog badan ma ogolaanayo jeeraha kale inay si fudud isaga soo galaan Master wuxuu weerarayaa wax kasta oo uu arko inay caqabad ku yihiin jeertu waa mid xoog badan isla mar ahaantaasina khatar badan sanad kasta waxay dilaan dadka soo booqanaya halkani in ka badan inta uu salfado libaaxu mid ka mid ah libaaxyada halkan ay kula nool jeerta ayaa waxay dhashay laba yar oo kala ah lab iyo dhadig kuwaas oo jira 4 toddobaad oo kaliya waxay ka qarinaysaa dhalahan yar libaaxyada kale waxaana dhalahaniyada u yihiin sir u qarsoon waxay jiraan 4 toddobaad oo kaliya oo xataa waxa cuni kara daanyeerka waxay qoyska intii kale uga baxday inay dhasho isla mar ahaantaasina dhaleehda korsato waxaanay u nugul yihiin dhalaha yar in la idlaan libaaxyada kale ee qaangaarka ee qoyska kamid ah waxay dareemaysaa qaylada daanyeerka waxaanay ka feejigtahay inay dafaan waxba ay dareento waxay ku guuleysan kartaa dagaal kasto halkan ka dhaca maadaama dhulka si fiican u kala taqaan jaarkeeda koobaad waa bahalka loo yaqaan daanyeerka khatarta jeertu ma aha mid si fudud la isaga indhatiri karo walow ay doog cunto badan haddana waxay si fudud u dili kartaa kuwa yar waxaanay si fudud u gali karaan khatar
dagaalkii koobaad waxa guuleysatay jeerta waxaanay mar walba iska fogeynaysaa libaaxa kuwa yaryari waxay awood u leeyihiin inay socdaan haatan waana lugayn karayaan goobtani waa goob dagaal waana meel noloshooda adag tahay dhayalla lagagama gudbi karo waana guriga qaar xoog badan oo cadaawa waa jeertan dhadigi waxay sidoo kale gaar ka haysaa dhasheeda sida libaax oo kale dhalaha jeertu waxay ku jiraan biyaha halka kuwa libaaxu dabada joogaan iyagoo wax badan ka baranaya caga baruurku waxa uu isku dayayaa inuu gaarsado iyagoo dhan ka qaba cabsida jeerta libaaxa dhadiga iyo dhalihiisu waxay heleen meel ay isku qarin karaan caawa sidoo kale jeertu waxay ku jirtaa biyaha iyadoo door bidaysa inay difaacdo qoyska kuwa yaryari wax badan ma oga waxaana iskala ciyaarayaan saaxiibadood biyaha webigu waxay u yihiin gaashaan balse waxay khatar galaan marka dhexdooda uu khilaaf ka yimaado balse waxa ku soo biiray mid kale oo isagu khatar badan Pitmaster ayaa u jawaabay midka guuleysta ayaa maamulaya harada iyo guud ahaan kuwa dhadig jeerta labi waa mid ka xoog badan oo ka miisaan culus libaaxa miciyaha jeertu waa qaar qoto dheer oo halis badan midka guuleysta wuxuu hanteeyaa daraasiin dhadiga isla mar ahaantaasina wuxuu aabbo noqonayaa kuwa dhalan doona marmarka qaar dagaalku waa uu daba dheeraada isla mar ahaantaasina kii guul daraystaa waa isdhiibaya in la dhaawacmaana waa mid aad iyo aad u sakhiran halkani haddii uu madaxa hoos u dhigo isla mar ahaantaasina ka hooseysiiyo madaxiisa waxay u muuqataa inuu guul daraystay balse haddii dabada looga baxo biyaha way ka khatar badan tahay dagaalkii gudaha ka socday isla mar ahaantaasina dil baa imanaya qoyska libaaxi maanta waxay waqtigooda ku qaadanayaan harada aageeda waxaanay raadinayaan inuu channel se helaan ku yaryar midka lab ee jeerti waxa uu door bidaya xataa habeenkii inuu dagaal ku qaado libaaxyada waxa weerar ku qaaday raxan libaaxiya balse aad uga ma baqayaan libaaxyadu way ogsooyin xataa haddii afar ku weeraraan inay ku adag tahay macquul weeye inay sugayaan weerar celis kadibna ay weerar doonaan balse macquul ma aha iyaga inay weeraraan waqti xaadir master markale ayuu ka guuleystay bisadaha waaweyn waxaana ku soo qaaday weerar waxbay iska eriyaysaa balse ugumay talagelin inay wax disho jeertani haatan libaaxyadan iyo jeerahani waa qaar iska koray isla mar ahaantaasina waxay ka dhagsan yihiin khatarta deegaanka iyo waliba fursadaha halkan ka jira